tarbiyada wanaagsan marka waxay ka bilaabataa walaalayaal ninku markuu doonayo inuu reer sameeyo ama qoys aasaaso halka inuu ka bilaabo way tarbiyada wanaagsan aasaaska waa inaad ka bilowdo guur markaad doonayso inaad soo guursato gabar saalixada raggu inta badan dumarka waxay ku xushaan qurux laakiin nabigu wuxuu boorinayaa sallallahu alayhi wasallam in dumarka lagu xusho diin in lagu xusho wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam gabdhaha afar arrimood dartood in loo guursado afar arrin mid ka mida inay raggu ku ximbaarto gabdhaha markay guursanayaan nin wuxuu gabadha u guursadaa quruxdeeda awgeed sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam nin wuxuu u guursadaa ehelkeeda iyo dadkay ka dhalatay inay dad wanaagsan yihiin nin wuxuu u guursadaa inay maal iyo hanti leedahay ninna wuxuu u guursadaa diinkeeda iyo wanaageeda wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam fadfar bidaati diin taribad yamiinuk war waxaad qabsataa ood ku dhegtaa ood ku guulaysataa midda diinka u saaxiibka ah gacantaadu boorowday midigtaadu ha boorowday waa boorin oo nabigu nagu boorinaya sala allahu calayhi wasalam inaan xulanno midda diinka u saaxiibka ah marka waxaa loo baahan yahay nin walba oo reer samaynaya ee dhallinyaro ah ama nin weyn ah da'du doona ha jiree markuu rabo inuu qoys sameeyo gabadha uu dooranayo waa inuu diin ku doorto maxaa yeele waa qofka kula shirkoobaya oo nolosha kula wadaagaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad rajaynayso inuu dhexdiinna ubad dhigo oo ilaahay carruur kaa siiyo hooyadu hadday tahay qof liidato carruur liidata ayay soo saaraysaa hooyadu hadday tahay qof wanaagsan waxaa la rajaynayaa ubad wanaagsan in ilaahay ka keeno subxaanahu wa tacaala maxaa yeele hooyadu waa madrasada ilmuhu ay ka soo baxaan oo intay carruurtu yaryar yihiin waxa lagu tarbiyeeyaa waa guriga waxa inta badan ay hadalka ka qaataan ama ay raacaan oo ay ku daydaan hooyada aabbaha qaalibku waa maqan yahay oo xaafadda waa ka maqan yahay hadday carruurtaasi gabdha yihiin mas-uuliyadda ugu weyn hooyay sii saaran tahay maxaa yeele hooyaday la joogaan hooyadii bay xogta u sheegtaan hooyaday asraarta la wadaagaan waxyaabo fara badan bay ka ogtahay hooyada arrimahooda hadday hooyadu liidato gurigaasi kuu taagnaan maayo reerkaasina way adag tahay reer dhaqmo wanaagsan inuu noqdo aasaaska marka waa in marka hore la saxo tarbiyada waa in aasaaska laga bilaabo